magaaladii maaragtay dadkii maaragtay dad aamin in la raadiyo maasha allah aniga ilaahay amarkiis laba qof hadda intaan youtube-ka furay waxaan u istaagay laba qof abaay Khadiija Maxamuud iyo adeer Cali labadii qof waxa soo dhigtay youtube-keeda aan ka arkay walaashay Farxi Tawakkal marka ayadaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أيان لول أو إذن لسود وهذا أصحاب الجنة كي كحرا إن شاء الله وهرين حيث قعد سنة برنامج كنا نوشير قريسان وحي فريمان إن شاء الله قيبتكم أنتي عنه وسو ريبتين سود وهذا وحان ربعين عن قلبت عن كهدله وحاد لو بهنا إن لغا هدله oo maaragtay madaxda inay ka hadasho loo baahnaa ganacsadayaasha inay ka hadlaan loo baahnaa culimada Soomaaliyeed inay ka hadlaan loo baahnaa oo u maleynaysid waa laga hadlaa laakiin maar sidii loo baahnaa in looga hadlin u maleynaysid oo ka hadlay wiil aad u yar u daayar oo dhalinyaro ah oo youtuber ah oo maasha Allah arin lagu farxo ay tahay hooyo Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo labada gacmood ka go'an oo saddex ciyaal haysato وجنالكيس وصادقة وجهد لاي إنه بالشدة الصومالية ميلول بيجوان ماركتة عاويان ويستاجان إن حال داتن وحلقة بتان أسجن وحب بلن قاعد جنالكيس إنه ضد كماركتة دبعتي سنة إنه كعاون دونه إن جاكيس وجهره وبشان وقاتن إن شاء الله ودق هواية الصوماليات مرول بنو جنالكيس وتاجنان دونه ضد كدبعتي سن ونكعاون دونه ضد كدبعتي سن وأرين والله aad loo soo dhaweeyay aadna loogu farxo wiil yar oo dhalinyaro ah oo youtuber ah oo istaag waxaan rajaynaynaa dhalinyarada youtuberinta ah insha Allah ina wiilkaas ku dayatiin yaa waa wiilkaas oo maleynaysin waa wiil Soomaaliyeed oo youtuber wiilasha Soomaalida youtube ku jiro ila mid yahay wiil ma aragtay dadkaas maanta iga soo sokeeyay aan leeyahay ma aragtay aqoon iyo waxaan ku taageerayaa ma aragtay qabiil midnaba maahan waa wiil Soomaaliyeed سايدين شيء إن شاء الله وح وماركتي وكهرلين وارن آد لو فرحة أون لسود دويه ضد وحاجر ضد كمان قصاص وكل ويستاجان ماركتي أنا سود دوين ويل كأنه حنوج بهاي هاي وحكى لنا ما بهنا نفتي سوحه ما بهنا وانين قرب جوج أو قربها جوج أنا شقيسته أو دلنيرة محل وح ولا وح وبهاي مجرتوح وبهاي دت كاس دبعتيسن ولا ليس ويستاج إن العاوي أنت صعد صدي إن شاء الله وحن رجينا إن أود استاجنه قفكم مركو ساسة وكلا دتك ولا ليس وقدم قضاء ويستاج وصومال نمو يستاج وإسلام نمو يستاج وبهاي دي رجالين يوم عرفت إن وحلا لقبته محل قفك ما عرفت دتك ولا ليس ما عرفت لا عاوين كرو حواي هذه صدقي كوتاي برنامجيديس oo la share garay because umad islaamka iyo walaalihiis uu istaagay barnaamijyadiis oo la wada share gareeyo channelkiisa oo si aad ah u soo booqano waxa jira dad badan oo youtuberin waaweyn ah oo dadka dhibaataysan loo baahan inay caawiyaan oo ka hadlaan ee hoos u eegaan oo wallahi bila iska weynaysiinaysa arkay oo ana ka hadlaynin channelkooda oo maleynaysa inay kaga faanayaan inay ku soo gudbiyaan dadka ma aragtay dhibaataysan iyo dadka naafada iyo dadka ma aragtay isku soo duubda qofka haduu naafo yahay iyo haduu naafo ahayn uu dhibaataysan yahay iyo haduu da-hayso uu xanuunsan yahay kori hoos waxa way dhib waa dhib ummadan ma aragtay annaga baa ilaahay ma aragtay iyaga markii wax la siin annaga nala siin annaga lagu fiirinaya ina is caawino laakiin aad arintaas isoo jiidatay waxaan idinka codsanayaa please aan leeyahay cod gaaban iyo cod dheer bid kugu soo gudbinaya wiilkaas channelkiis ina booqatiin aad soo dhaweysiin sida ilaahay ugu ogyahay caawa ciidu ya wallahi inaan garanaynin oo Soomaali ciidu ka yahay aan aqoonin waxaan u hadlayaa sida uu u hadlay raganimada buuxdo damqashada uu dadkiisa uga damqaday uu u balan qaaday jeegiisii nin dhalinyaro ma jiro maanta jeegiis uu soo qaatay si gudbinayo
marka kuwa youtuberiinta waaweyn waxaan leeyahay ku dayda wiilkaas walaalkiin ah dhiirigelin siiya wax kale xataa daaqabayna hala dhiirigeliyo janalkiisa hala soo booqdo taageero buuxda hala siiyo insha allah waa wiilkaas yaa waa u malaynaysiin waxaa waaye maxamed xasan youtube-ka la dhaho tiita cadde waxaan ku leeyahay habar macaanto khayr badan ilaaha ku siiyo haddaan reer iyo caruur leedahay reerkaada iyo caruurtaada ilaaha kuu barakeeyo waxaad jeceshahay oo khayrku ku jiro jannada ugu horeysa ilaaha ku siiyo waxaadan filayno khayraan kuu rajeynayaa maxaa la adduunya aakhiro wax ku dhigo ilaahay kuma tuso farxad badan sababta waxaa ka shaqaynaysid farxad badan waa heli doontaa insha allah waana arki doontaa hadduu ilaahay yiraahdo maxaa la haddii aan reer iyo caruur aan lahayn ilaahay ku gabar khayr qabto ilaaha ku siiyo insha allah ku rajeynaynaa haddii aan reer leedan reerkaada ilaaha kuu barakay haddii aadan lahayn mid khayr qabto ducaysan albaabka allah kaaga soo geliyo waa ku hambalyeynayaa oo aadaan kuugu farxay aadaan kuu soo dhaweynaynaa insha allah waxaana ka codsanaa ummadda soomaaliyeed meel walba aad joogtiin hooyo canab in loo kaco hooyada labada gacmood ka go-an waaye insha allah aniga waxaa arrimo kale igu furan oo ma aragtay aan weli ku guda jiraa adeer cali arrinta qadiijo kulli ma dhammaynin tacsi iyo ma aragtay xanuun ah la xanuunsada iga soo dhex galay marka insha allah mukhtaara naga yar xanuunsada duurooyin alxamdulilah iyo tacsidii mukhtaar aabiis waxbaa naga kasoo kala dhex gal bini aadana liska waa iska garanaysiin marka alxamdulilah arrintaasaa weli ku guda jiraa far kaligeedna fool ma dhaqdo ummadda dhan waa in loo wada kaco oo ganacsadayaasha ay kacaan culimmada soomaaliyeed ay kacaan maxaa la dhahaa madaxda soomaaliyeed ay kacaan madaxda soomaaliyeed ugu horeeya madaxweynaha waxaa waaye intaas suudad isku wada taagteen oo jeebabka lacagihii aa ka buuxsateen aa iswada qurxiseen oo baawur cadcad aa wada qaadateen dadkii aa u dhaarateen aa u ballan qaadeen waa ilowdeen inta kursiga u ordayso iyo inta kursiga ku fadhidabo waxaan idin leeyahay ummadda soomaaliyeed idinkaa dadki maanta noogu horeeya aan fiirsanayna u kaca ummadda soomaaliyeed ee dhibaataysan dadka rafaadsan u kaca dadka aa leedihiin waxaan u qabanaynaa inta ordayso waa dadkaas inta sii oroday oo hadda maaragtay madaxnimada haysatana dadkii aa u dhaarteen aad tiraahdeen waxbaan u qabanaynaa waa zero waxaa u qabateen malaha see wax ku helaysiin see nabad ku noqonaysaa soomaali see gacmo isku qabsanaysaa dhibaatooyinkan oo kaleetaa jiro ilaaha laga boqo qof kasta oo bini aadan ah mas-uul qof kasta oo bini aadan oo islaamnimo damiir islaamnimo uu ku jiro mas-uulna way ka saaranta waa inaan u damqano oo u istaagno qofkii $1 siiyo qofkii $100 siiyo qofkii $5 siiyo qofkii aan waxbaba awoodin oo u duceeyo qofkii videogii looga hadlayo dadkaas sii sheer gareeyo sheerka xataa aad taabato videogaas aad sii sheer garaysay haddaad sabab u noqoto ka waran 50 qof inay daawadaan eeba 20 sadaqa baxsato adiga naftirkaad ajarka waxbaa ka leedahay sadaqada ciyaar ma awlaada ilaahay noogu xifdinaya waxaa waaye maalku ilaahay kuugu saa'idinaya gurigu ilaahay kuugu barakeynaya gabdhaha waxaan leeyahay Soomaaliyeed wadanka idinku taagan yahay wax walba idinku socdaan waxaan idinku ogahay naxariis badan u istaaga hooyadeen hooyo canab ha loo istaago waa hooyo Soomaaliyeed Soomaalinimo ugu naxariisano islaamnimo ugu naxariisano hooyanimo ugu naxariisano aan u istaagno hooyo canab waa hooyada labada gacmood ka go'an oo 3 ciyaal haysato waxaa soo dhigay janalka wiilka la dhaho tiita cadde insha allah booqda haddaan kayga soo dhiga dukiisa soo dhiga waa isku mid insha allah waxaan ka damqaday hooyada dhibaataysan iyo wiilka yar ee ilmaheena oo kaleeto ah oo intuu istaagay ka damqaday inta youtuber aan nahay waxaa kaleeto oo asagana istaagay oo asagana ma aragtay in hooyo loo gurmada ka dardaarmay oo ka hadlay asagana maxamed buskud waxaan ku leeyahay habar khayr badan ilaaha ku siiyo awlaadaadi gurigaada ilaaha ku barakeeyo waxaa jecesha jannada ugu horeysan ilaaha ku siiyo waxaa tiin wiilal yar yar oo aad u wanaagsan oo khayrka jecel saas uga shaqeeya khayrka laakiin insha allah waxaan rajeynaynaa inaad u istaagtiin aaw odayaashii aaw hooyooyinkii aaway maaragtay aabayaashii gabdhihii Soomaaliyeed aaway aan wada istaagno YouTube kasta wallahi hadduu baxsho $1 qof kasta oo dhibaataysan waxbaa loo qaban karaa midna waa in kala dardaarmaya dadka dhibaataysan oo wax loo qabanayo annaga in muddo baan sadaqada 12 sano waa gurayne ayaan lul idinka walaalay aan jeclahay YouTube kan baa hadda ku aragteen ay furatay ay sadaqada gurayso anay sadaqada igu cusubta ayaan ahaan been idin sheega laakiin odagayga waligiis uu guri jiray sadaqadan iyo khayrkan uu ka shaqeyn jiray magaalada aan deganahay Toronto deganahay aniga Canada gaar ahaan Toronto aan deganahay waligiis sadaqadan ka shaqeyn jiray marka waxa iska ilaalisiin haddaan nahay YouTuberin
meel walba adduunka youtuber wuu joogaa tuulo ha dhihin magaalo ha dhihin gobol ha dhihin degmo ha dhihin youtuber waa laga helayaa inaan annaga is aamino qofkii ma aragtay wax loo diraayo qof kale inuu sii wakiisho qof aamin in lagu hagaajiyo magaaladii ma aragtay dadkii ma aragtay dad aamin in la raadiyo maasha allah aniga ilaahay amarkiis laba qof hadda intaan youtube-ka furay waxaan u istaagay laba qof abaayo Khadiijo Maxamuud iyo adeer Cali labadii qof waxa soo dhigtay youtube-keeda aan ka arkay walaashay Farxiyo Tawakal marka ayadaanu ku hagaajiyay arrintan aad arrin loogu farxeed haddana abaayna way gudbisay si sharaf leh ay ku sharaf ku dheehan tahay ayadii walaalkay injineer Liibaan aad iyo aad aan kaga mahadcelinaa sida quruxda badan aan noogu soo bandhigteen iyo sida quruxda badan ah haddana u gudbiseen marka waxaan idin leeyahay walaaleyga aan jeclahay saas oo kale aan wada istaagno sida Farxiyo kale iyo xaajigeeda Liibaan khayr badan Allah siiyo laakiin galabta videogayga wuxuu ku socdaa wiilkayga Tiita Cadde ummadda Soomaaliyeed ay la mid tahay hooy macaanow khayr badan Ilaahay ku siiyo horay u soco guuleyso weligaana gadaala soo fiirin insha Allah waxa way dad badan ay jira markii sadaqooyinka la guray dadka niyad jabiyo hadda maxaa la maalin dhaweed waxa jirtay dad dhibaataysan oo la soo maaragtay la soo sawiray dadaa waxay dhaheen dadkan igu sawir waay dadkan waxa way saan walaaleyga aan jeclahay sida qaldan ha u fiirinina hatta haday igu sawir ay tahay anaga aqliga maliin sawir qof intuu soo qaatay uu telefoon ku soo dul qoray uu dhaw qofkan lacag loo soo diro cidna lacag uma direyso waa in la hubsado dadka horaa waxa soo kale loogu dhacay horaa loogu jabay horaa loogu wareeray marka qof walbaba qofka dhibaataysan uu rabo inuu wax taro marka ugu horeyso waa inuu dhaho qofka uu garanayo magaaladaas uu joogo ama haddii xitaa ereadaas u dhowda lacag kaaga baxdo qofkaas inuu u tago uu soo booqdo marka hore uu qofka u tago uu kuu soo sawiro uu kuu soo arko isku day taas samee ana hadda maalin dhaweed wiila jiri uu soo calaacalay oo inaa caawi igu soo calaacalay marka wuxuu ii sheegtay dhibaatooyin aan la soo koobi karin mana rabo inaan inta haddaba kasoo gudbiyo waxaana aadan oga naxay waana ka damqaday waxaana weydiiyey waxyaalaha u baahan yahay intay la eg tahay ma bulshada Soomaaliyeed inaan kuugu bandhigaa rabtaa mise waa wax aniga shakhsi ahaan aan ku caawin karo wuxuu ii sheegay wax inaan aniga shakhsi ahaanteeda caawin karo inay tahay markii dambena waxa ogaado wuxuu sheegayo dhan inay waxba ka jirin sababtay taa qof ay meeshii dada noo joogo ehla noo joogo Muxtaar walaalkiisa hataa joogo maasha Allah magaalada Muqdisho meesha uu ii sheegay magaalada Muqdisho aad marka dadkooda joogo walaalaheena joogaan eheladeena joogaan aqrabkeena oo dhan joogaan saaxiibadeena ku kalsoonahay joogaan youtuber-inta dadka isla wadan oo sida walaashan Farxiyo Tawakal kala joogto injineer Liibaan oo kala joogo waxaa jira marka dad saas oo kale oo ku soo ogaan kara arinta runteeda iyo beenteeda insha Allah laakiin sida hadda hooyo canab oo hooyo dhibaataysan dhowr marna ma aragtay la wareysanayo meelo badan oo Facebook hatta kamid tahay aan arkay horta kaalintan ka geysan kara insha Allah waa ka geysan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waana isku dayay arinteeda kulay raac dambe inaan idin la soo qabsado laakiin insha Allah halii garab qabto hadda youtube-kaas u istaagay Tiita Cadde insha Allah hala booqdo hala share gareeyo intaas taa wax dhan waa hadii la booqdo la share gareeyo canab kaliya mooho wuxuu ballan qaaday dadka ummadda Soomaaliyeed oo dhibaataysan inuu janalkiisu adeegi doono waa arin aad loogu farxo waa arin aad loo soo dhaweeyo dhalinyaradeena saas oo kale insha Allah waxa ka rajeyneynaa in lagu wada daydo ku daydo markii la dhahay maaha ina wiilkaas garasho loo amaanayo oo idinka nila bahdilay waxaan waa wax Soomaali taas waa taa ku harnay waxaan waxa qofku wax qabanaya aragtiin oo wiil dhalinyaro oo shaqeysanayo oo qurbo joogo wuxuu kaaga baahan yahay ma jirto just dadkaas umada walaalihiis Soomaaliyeed u ka damqado istaag muxuu baahay marka dhiirigelin wax kale uma baahno just dhiirigelin bis u baahan yahay waa ina dhiirigelin insha Allah waa ku dheeraaday waxaan idin leeyahay intaas ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxaan idin leeyahay dadka ku cusub waa idin soo dhaweynaa dad badan ay igu cusub oo maalin walba igu soo darsamo aad iyo aad idin soo dhaweynaya rag iyo dumarba dadka youtube-ka ay ku cusub waxaan idin leeyahay soo dhawaada dadka aan gambaleelka u furnayn subscriber u ahayn subscribe gareey gambaleelkana furta saa aragtiin waxyaalaha soo geliyo aan isla socono Soomaaliya aan caawino youtube walba youtube-ka ka hooseeya caawiyo dadka youtuber-inta yar oo dhan waa is caawiyaan maasha Allah si aan caadi ahayn waxaan is caawi oo dadka aan caawinin waa youtuber-inta waaweyn oo dadka uga soo wareeyeen in yar mooyaane dadka ma caawiyaan weyn iskala weeyin hatta comment-yadan li soo qor dadka uga soo jawaabtaan marka video kala kaas uga hadli doona
waxaan idin leeyahay wixii fariina commentiga igu soo reeba barnaamijkana waa muhiim noo sheer garay hadduu ilaah yiraahdo codsi waaye bliis noo sheer garay hadduu alla idin janalka wiilkaygana hala soo booqdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu